dhacdooyinka maalinka qiyaamo dhici doona qaabkay u tartiibsan yihiin cala nusuus sharciya aw cala araajix min qowli ahli cilmi ayaynu wax yar dul maraynaa marka laga soo baxo qubuurta la soo diray banka qiyaamo weyn baa la imanaya carasaat alqiyaama iyo mowqif iyo ardulmaxshar iyo intuba waa la yidhaahdaa maxsharkii bankaasaa la imanaya waa inagii soo marray dee in badanoo dheer baa la taagnaanayaa ilaa dadka qaarkood ay tamaniyaan in la kala dhaqaajiyo meesha lagu kala dareero haddayba doonto naar ha la geeye ha la cadaabe qiyaamkaa dheer ee la baaba'ahayeen halkaa dhakadaa laisu keenayo qoraxda ee nin walba uu rafaadayo ee xaaladdu ay adkaato oo ilaahay uu ka yidhi fadalika yowmaidin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir maalinkaa markay xaaladdu ay aad u kullaato ishu dhiigto waxaa xigi doona intaan wax kala dhicin waxaa la kor yeelayaa oo la tusayaa ambiyadoo dhan nabi walba xoodkiisii waxaana u soo horaynayaa in la soo koryeelo oo la tuso nabiga xawdkiisii darkii macaanaa ee laga cabayey kaasaa yaa la markaaba muuqanaya markaa dee muddo ilaahay yaqaana la taagnaado banka oo la baabo oo la rogmado oy baryadu isdaba marto ayaa nabiga xawdkiisii la kor yeelaya intuu ilaahay u qadaray baa ka cabaysa waa ishaaro wanaagsan oo ninkii xawdkaa ka caba inuu badbaadayo oo u naar ku waaraynin ku tusaysa wey ninka aan ka cabinna malagii ayaa galay nabi walbana markaa markuu kiisa nabigu uu kor yeelo nabigu ummadda uu ka waraabiyo nabi walbana xawdkiisii baa la tusayaa ummaddiisii buu ka hagayaa iyo dadka rumeeye raacee muslimiinta ahaa mar labaad baa mowqifkii lagu noqon oo xawdkii hawshiisa la xidhi banki qiyaama waxaa la taagnaan intuu ilaahay doono in la taagnaado subxaanahu wa tacaala sidii baa loo cadibni oo loo rafaadi oo baryadu isdabamari markaa dambe ayaa dadka banka taagan waxay odhanayaan inooga ergeysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuna aadam baa loo tegey waa naga soo marray qisada dheerayd min abina aadam ilaa nabiyina muxamadin calayhi salaatu wasalaam markaa dambuu nabigu shafaaco qaadaya marka alshafaacatu alcudmaa fii ahli lmowqif waxaa ka horeeya qiyaam dheer iyo xawdkii nabigoo laga cabo iyo nabi walba xawdkiisoo la tuso ayaa ka horeeya kadib ashafaacat alcudmaa waxaa xigi doona waa inagii soo marray in ummad walba loo yidhahda raaca wixii aad caabudayseen kullu umma ha raacdo litattabic kullu ummatin maa kaanat tacbudu fi dunya nin walba sanamkii iyo geedkii iyo awliyadii iyo ahlu qaaburkuu daba tagnaa baa la raacinaya naar baa wixii aan la caabudaynin oo dhan lagu guraya waxaa marka soo hadhaya ahlu tawxiidkii baa soo hadhay min jamiic اlumam min abina aadam ilaa nabiyina muxamadin calayhi salaatu wasalaam ayaa soo hadhaya oo ahlu tawxiidka ah ahlu tawxiidkaasi marka ama mukhlisiin dhab ha noqdeen ama niman tawxiid muujisto oo inasira ha noqdeen sida munaafiqiinta oo kale bankaasaa lagu soo hadhaya waxaa bilaaban markaa xigi doona cardu اlacmaali cala alcibaad axad walba camalkiisi baa loo bandhigi bandhigaasi waa bandhig dood weeye yowma ta'ti kullu nafsin tujaadilu can nafsiha camalkaadii baa nin walba ilaahay u bandhigaya axad walba miyaadan waxaan samaynin kan miyaadan yeelin axad walbana wuxuu moodayaa ilaahay keligii inuu la hadlahayo laysa baynahu wa bayna allahi tarjumaan cardu alacmaal baa xigi doona oo cardiga waa cardu xijaajin waictidaar nin dooda nin cuurdaarta halkaasay hawshu tegi doontaa cardu acmaalka lilcibaad waxaa xigi doona alxisaab marka la bandhigo hawshii la ictiraafo nin walba wuxuu ka dooday iyo wuxuu diiday iyo wuxuu dafiray iyo wuxuu qirtaba hawsha xisaab baa bilaabanaysa wanadacu lmawaasiina alqista liyowmi alqiyaama ayaa tegaysa waa xisaabtii baa markaasi la gelaya bacda alxisaab waxaa dulduulaya atataayur baa bilaabanaya lisaxaa'if alacmaal aw lisuxuf alacmaal nin walba kitaabkiisii iyo diiwaanka wax loogu qorayay iyo waraaqihiisii baa duulayo gacanta loo gelinaya wixii ahlu khayr gacanta midig baa kitaabkooda laga siinaya wixii ahlu shar ahaana gacanta bidixi baa laga siinaya nin walbana kitaabkiisa inuu akhriya loogu dhiibaya marka intuu xuquuq lagugu yeesho aad muranto buuggii fooda lagaa geliyo akhrisaa lagu leeyahay markaad iskaa u soo akhrisato
ood buuggii waxa ku yaallo waxaad dafirtay waxaad dagaalantay ka dhigto ilaan biniaadan ma warma daaye meel laga marna ma jirtee ayaa xisaab labaad lagu noqonaya tii hore cardi bay ahayd xisaab guud bay ahayd hunaa waxaa waye buuggaadi waa ka iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba asagaasaa lagu dhiibi ood akhriyi ood kala baxaysa bacda qiraa'ati اlkutub wa bacda alxisaab maxaa ahaan doona kutubta marka la akhriyo oo nin walba kitaabkiisa akhristo xisaab baa ku xigi xisaabta hore maxay ahayd xisaabu ictidaarin wa xijaaj ka cardi alacmaal tud labaad baa bilaaban oo ah xisaab loo xisaabu qaطci اlmacaadiir maanagaa ku dulannay kitaabka maxaa ku qoran matan ka waran waan qabaa mitan ka waran nuunu hadduu dhaho afka la shurotayn yaa darooriyamahaya jirkaa hadli lugaha hadli gacmaha hadli kala bax wey xisaabta u dambaysa waa xisaabu qaطci اlmacaadiiri wa iqaamat اlxujaj dood iyo tii waa anaa wax ma samaynin iyo soo dhammaatay laga soo teg diiwaan baa laguu dhibay diiwaankii baad akhrisatay hadda waxaa le haya ka xisaabtan buuggi maxaad ku aragtay miyaa lagu dulmiyey ma malaa'igtaydi baa ku dulmiday ma addoommii wax kaa qorayay baa kugu xadgudbay ka hadal hadduu dafiraad isku dayo waxaa laga sii dayn gacmihiisii iyo jidhkiisa hadli iyo lugihiisa xisaabta u dambaysa waxaa xigaya almiisaan markuu wax walba ruuxu qirto oo lagu kala baxo oy gacmuhu hadlaan oo lagu darooriyamaan wax walbana ictiraaf noqdo oo ruuxu qiilku ka dhammaado yeelay haddaba buuggaadii ama adiga qudhigaada ama acmaashaadii baan miisaamaynaa fiirso istaag halkaa fiirso miisaanka ilaahay cadligiisa subxaanahu wa tacaala qiilkao dhan baa lagaa dhammayo saadaad u dhimatay oo qabriga lagaa soo bixiyood banka qiyaamo timaado ilaahay waxaad kasabtay wuu og yahaye hebelow soco gar naarta adigu soco gal jannada sooma dhihi karo ilaahay waa og yahay wax walba waa la socdaa addoonna dulmi mahay wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid laakiin waxaa weeye qiilka u dambeeya lagaa dhammay kitaabka ku celi xisaab guud baarasho wada hadal hoose wad marka u dambaysa haye soo istaag way miisaankaada fiirso kafatay lmiisaan baad fiirin acmaashaa la miisaami markaa dambe ee bacda almiisaan yimaado waa la kala bixi dadka tawaa'if iyo asnaaf waطuyuuru calaa ashkaaliha taqac baa loo qaybin uxshuruu aladiina dalamuu waaswaajahum wama kaanuu yacbuduun wixii isku sinfi bay noqonayaan ninka cadaabulqabriga inkirsanaa intii cadaabulqabriga dafirsanayd baa la raacinaya ninkii xumaan iyo qolyo guruub ku ahaa guruubkiisi baa la raacinaya waaswaajahum ay nadaa'irahum waashbaahahum waa la kala bixi ahlu zuhdigaa lagu daraya dadkii soomka badnaa jamaacatu saa'imiin baa la raacinaya ahlu qur'aan baa la raacin waa la kala bixi allah yow la kala miiranya meel lahay raacin buur ninka ku khaldamayna wuxuu yidhi allah yow la kala miiranya meel lahay raacin buur marka maansadii buu khalad u qabtay dhan kale u ka saaray marka dadka loo kala saara sanfi guruub koox urur bimacnaa acmaal baa laysku raacinaya meesha qabiil maanta ma jiro camal iyo waxaa laysku raacin nin walba wuxuu kasbaday baa loo kala qaybsami marka ayada ah weeye marka banka yaa siraadka jidka siraad la istaajinayo buundo weyn la saarayo jahannamo marka buundo weyn jahannamo la saaro intaan weli lagu dhaqaaqin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ifkii nuurka tagsiinaya mugdi bay noqonaysaa carradu qabla asiraad wa qabla jisri jahannama taqacu dulma mugdi baa dhici mugdigaa markuu dhaco wixii ahlu tawxiid ah munaafiqoodii iyo mu'minkoodiiba waxaa loo daarayaa nal baa u iftiimaya haddaba mugdigu ku socdaa laleeyahay ku dhaqaaqa wixii ahlu tawxiida nalkii iftiinkii waa u soconaya iyo nuurkii waddaday ku marayaan jidka saraad bay ku marayaan munaafiqiintu markay jidka saraad saafiyadda u saaraan nalkii waa ka tagahaya ilaahay waa ka daminaya galaatay ka daadanaya iyo sheebtaa naar jahannamay ka duulayaan waa inaga soo maray fii saxiix muslim in narka marka hore la siin oo iftiinka nuurku ay ka qayb qaadanayaan marka koobaad munaafiqiintu
lianno shay qiimo badan intii lagu siiyo in lagaa dafo waa muraadilaac. ilmaha yara carruurta haddaadan wax fiican aadan siinin wuu iska sabri. aabbo ma ii keentid, aabbo ma idiisi, intaasuu ku haynaya. laakiin markaa shayguu raba intaad u dhiibto aad ka dafto ilaa galabkii ooyaya, wuu muraadilaacaya, wax aamusiye la heli maayo. marka intii nuurka loo daaro yaa laga daminaya, jahannamay marka ku hoobanayaan kulligood. muslimiinta waa inaga soo marray, fa minhum makhduushun naajin iyo minhum yamuru ka mari albarqi ka mari الriixi ka mari الطayri ka mari jiyaad اlkhayli ama ajaawid اlkhayl baad soo marteen, wa ka shad الrijaali ilaa ay acmaashu la go'do nin walba ay meel xun dhigto. bacdu alaba igu baraarujiyey, sheekh yaxya igu baraarujiyey shalay xadiidkii inaan taabannay ahayd, halkaas haddaaban xusuustay. shalay waxaanu soo marray jidka siraad markay ahlu tawxiidku marayaan munaafiqiin waa hadheene, tajri bihim acmaaluhum, acmaashoodii baa la soco. ninkan camal la iman xaggee aadaya? man qaala laa ilaaha illa allah walam yacmal xaggee aaday? tajri bihim acmaaluhum baa la yidhi. haye ninkan camal la imanin kama tirsama ummadda jidka maraysa, shuqulkuma laha. tajri bihim acmaaluhum xatى tacjiza acmaalu اlcibaadi xatى yajiءa الrajulu falaa yastaiicu الsayra ila zaxfan. camal haba yaraadee nimaan la imanin meeshaa mari maayo. yuu raacay? gaaladiisiibuu raacay, munaafiqiintii iyo dadka la halmaale. sheekh cabdiwahaab marka waa kii odhan jiray fii kitaab kashfu الshubahaat aakhirkiisa, man qaala laa ilaha illa اllah walam yacmal fahuwa munaafiq. wa axad اlmunaafiqiin waa runtii. qolyaa fahmi waaye oo sheekha ku naqdiyey oo cirka isgeeyo iswaalay, iska ilaali. in cabdiwahaab warkiisu war sahlan ma aha. kaana min adkiyaa alcaalam faqiihan fatinan. masaa'ilku la soo baxo xertu iyo masaargaabku ma fahmaan. masaargaab iyo masaargaab ma fahmaan, iska ilaali. ayib, maxaa ka dhaxeeya munaafiqaas iyo munaafiqa asalkaa ee la yaqaana? mid walba cadam alcamali. munaafiqa camalkiisa lama aqbalo, waqad qaala laa ilaha illa allah. ninka asagoon intuu laa ilaaha illa allah yidhi hal camal aan la iman waa kal munaafiq laa camala lahu. maxay ku kulmeen? alcila aljaamica baynahum waa maxay? wa intifaau alcamali min kilayhima maca qowli kulli waaxidin minhuma laa ilaha illa allah muxamadun rasuulu اllah. waxbayaan hadda hawshaa kusii mashquul, mar waan ka hadlay. waa inay in badan ku odhi cilaaqaة الnusuusi wاladilati cinda ahli الsunna wa cilaaqaةu bayaanin wa takmiil. hawshaas haddayana ku mashquul. xaggeen maraya? dib aan u noqdee. nuurka munaafiqiinta haddii laga debiyo, waa inaga soo marraysa calayhi الsalaaةu wasalaam jidka siraad inuu istaagayo oo uu le allahuma sallim sallim, allahuma ummatii allahuma ummatii, ilah ummadda badbaadi. kadibna dadku waxay ku marayaan jidkaa siraad calaa qadri acmaalihim. ninka intuu camalkiisu la daciifo mari waaye ka hoobtana ay naartu la hadhana aakhir wuxuu ku baxayaa bishafaacati ashaaficiina wabiraxmati arxam الraaximiin. kadib waxaa imanaya markii jidka siraad laga gudbo masale khilaafiya. xawdkii baa mar labaad la soo celin, ila waa la soo rafaaday, jahannamii qiiqeedii baa la maray, dhib badan baa maalinkii hore la cabbay, ka dambaysay la nastay. mar labaad baa intaan jannada la gelin xawdkii nabiga laga cabbi. waa culumaa yidhi, culumaa odhanaya xawdkuba bacda jahannamo wey, bacda asiraati iyo intii jahannamo la maray kadib baa xawdku imanaya. wasawaabu inuu ka horeeyo wey, laakiin waa ra'yiga culummada qaarkood ay qabaan, bacdu nusuusna u daliisheen iska ogo. marka jahannamo la maray jidka sira laga gudbo ama xawdkiiba laga cabo calaa ra'yin, waxaa xigahaya alwuquufu fii carasaat اljanna. horaan baad soo martay alwuquufu fii carasaat alqiyaama. huna waa maxay? banka iyo ardaaga jannada la istaagi, muminiintoo dhan baa halkaa iskugu iman. marka ayada maxaa la rabaa? muminiintaa loo kala qisaasay, ayagaa kala bixi, weli ayaga lama kala saarin. muminiintii wax kala tabanaysay, cuqdad isku qabay, wax kala sheeganayay, alqisaasu bayna ahli tawxiid baa bilaabanaya. kadibna cuqdada laga saaro oo nin walba xaqiisa kale laga siiyo. walaalka cafi la yidhaahdo, cafin maayo, intaa ku darso, jannooyinka qaado, ilaahay baa kala maslaxaynaya.
ilaahay markaa waa kala maslaxaynaya marka la kala maslaxay hawshu dhammaato wanasacna maa fii suduurihim min ghillin baa bilaaban kada iyagoo saafi ah waxba isku qabin oo walaale ilaahay ah ay jannada gelayaan jannada gelideeda waxaa u horrayn subana calayhi salaatu wasalaam waxaa ku xigi fuqaraa'u almuhaajiriin waxaa ku xigi fuqaraa'u alansaar waxaa ku xigi uma alaqniyaau aqniyada ugu dambayn xisaab gooniha meesha iyagoo lagu xisaabi tii hore islaamka la soo mareen iyo bini aadam oo dhan tu u gooni ah oo xooliha ay lahaayeen iyo xuquuqdii bini aadamka iyo xaqu naaskii baa gooni loola bixi 500 oo sano ka dambaynayaan fuqarada jannada uga dambaynaya 500 oo sano nusuustii 500 oo sano ninka maalka iska xisaab gooni ku haraya fuqaraduna ay markaa jannada ku dhufleynayaan shalay waa naga soo maray inuu xadiis tilmaamayay in nabigu ay garbinayso haweeney hadday nabiga raacdo hore oo la gasho ayadii nabiga u horay kadibna waxaa xigahaya fuqaraa'u almuhaajiriin uma fuqaraa'u alansaar uma alaqniyaa'u ayaa xigaya oo ahlu tawxiidka ah ilaahay oo marka qaabka u tartiibin dambe garanaya subxaanahu wa tacaala qaabkaasay isu suran yihiin u tartiibsan yihiin axdaadta iyo ahwaasha maalinka qiyaama dhici doonta inta inaan baraarujiyo waa rabay maadaama aan in badan cashirku soo socday